ciyaartii shalay ka dhacday xerada dhagaxley ee Toronto Olympic ayaa final ahayd 8 kooxood oo la soo gabagabeeyay tartan caalami ah oo ka socday oo 8 kooxood ayaa shalay labada kooxood u dambeysay oo final ciyaar waxay ahayd USB versus Al Mansour ciyaarta soo ciyaar adag ee dhaxmartay labada kooxood oo ahaayeen laba kooxood ciyaar wanaagsan soo bandhigeen inkastoo ciyaartii qaybta hore lagu kala nastay in ever lagu kala nastay ayaa qaybtii dambe ciyaarta ayaa xamaasad kala jabi kala sii gashay markii ciyaaryahanka istaraataha oo Al Mansour ay soo xareysay bedelka ku keentay ay Saha oo in badan oo difaacyada qalqal ku awuuray difaacyada kooxda ku soo horjeedeen oo isku fureen oo sababtay inay gool degdeg ah ee hesho ciyaartii second half ama qaybtii dambe ciyaarta inay gool degdeg hesho ayaa sababtay inay Al Mansour hogaanka qabato ee hal eber ku qabato waxaana gool caalami dhaliyay ciyaaryahanka Cabdullah Yare oo dhaliyay laba lugaatay mucjise oo taageerayaal badan oo indhaha qabsaday sidii goolka mucjisada u dhaliyay laakiin qalqalkaas iyo barasharkaas badan waxaa keenay istaraataha bedelka lagu keenay ee Saha wala ciyaaryahanka maqaarka badmaanayso inkastoo ciyaarta xilli dambe la soo geliyay ayaa isbedel badan uu sameeyay ayaa sababtay inay goolkaas dhashtaan Al Mansour la hormarto inkastoo daqiiqada yar kadib haddana la barbareeyay oo USB gool kale oo barbardhac xilli fiican ay kaysatay ciyaartii oo faraha labada dhinac la kala gubtay inkastoo labada gool hayay gubada halis badan ay saf gareynayeen dhinaca Al Mansour gool gubahooda waxa saf gareynay Bebe Reina unka qabiirka ah oo muddo 16 sano ciyaaraha ku jiro oo ilaa hadda ka fariisanin laakiin la rajeynay inay sanadaha soo socdo oo uu ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono ciyaaraha alla ciyaarteen caadi maan Al Mansour oo harantay horyaalka tartankan Legion oo ku adkaatay rigoorayaal ku badisay oo 5 iyo 4 kaga adkaatay dhigeeda USB ayaa ciyaaran caadi ahayn soo bandhigtay inkastoo ciyaartan guusheeda oo culeyskeeda badan u saaran yahay ciyaaryahankan oo Saha la dhaho istaraataha ayaa culeyska ayaa guushi ay gaartay Al Mansour oo ka dambeeyay inkastoo shaxdaas uu lahay toojka isbedelka badan u sameeyay ciyaarta meesha ay qaldantay u arkay dadka weerarka soo badsaday wala Saha kabtiis lama qabsan karo ciyaaraha dambe mucjisooyinka oo gool Al Mansour gool hambali Al Mansour ayaa hanantay koobkeedii 19aad ee tartamada oo idil wala koobka kooxdan waxaan caadeen maahan